saxaabigan eeg lan tanaalu albira xataa tunfiquu aayaddaa markuu maqlay wixii xoolihiisa ugu jeclaa buu eegay waa beertu halkay ku taallaa bayruxaa'a muqaabil masjidka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam muqaabilkiisay ku taallaa waa beer hadh macaan oo biyo macaan marka uu nebi maxamed salaada uu ka baxo beertaa buu nebigu geli jiray hadhkeegana uu fadhiisan jiray biyaheega macaanna nebigu uu cabbi jiray beertaa ma bixin lahayd adigu dhinacaa haddaad ka eegto waxaad leedahay beerta nebi maxamed uu galayo uu biyaheega ii cabbayo uu timirteedana ii cunayo uu hadhkeygana uu ku nasanayo cidba siin maayo intaaba sharaf igu filan baad odhan lahayd walaakiin saxaabigan wuxuu yidhi yaa rasuul allah beertaasaan bixiyey ciddii aad doonta sii buu iga baxda maanta markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bakhin kelmadda af soomaali maxaa la yidhahdaa riyaad saalixiinka af soomaaligaan ka eega ma og tahay aga buu qoray isagu lahjaddaa buu qoray lahjaddan markaasaan idhi anigoo kelmaddan af soomaaligii kale markaan eegnay innagu xaggeenna waxaan odhanaynaa alla ile waad ka liibaantay soo maha kelmaddaasuu nebigu isticmaalay bakhin yacni waa marka shay lagu farxo ee lala yaabo wanaaggiisa markaa buu nebigu u raaciyey xoolaha maanta ilaahay jidkiisa aad ku bixisay eed aakhiradaada aad u xawilatay abu talxow alla ile waad ka macashay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu yihi laakiin waxaan u arkaa inaad siisid qaraabadaada adiga kuwa kugu dhow ee fuqarada ee waxba aanan haysan sii buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii intuu u yeedhay ayuu beerta intaa la ekayd waxaa la sheegaa xataa 600 oo geedoo timira ku taallay geedka timirtaana baa la yidhi hee mar hadduu xididka uu dhulka la helo ilaalana kaagama baahno waraabina kaagama baahno waa geedka qur-aanka ilaahay ugu sheega cajaa'ibkiisa amaraati nakhiil qur-aanka ilaahay meelo badan buu kaga warramay waa geed manfaco badan waa geed midhihiisu waxaa la yidhi bini aadamku waxay yacni khudrawaad ay cunaan oo dhan fitaamiinka khudrad walba ku jirta baa la yidhi ilaahay wuxuu geliyey timirta maryama calayha asalaam markii nebi ciise cidlada ku dhashay raashin looma keenina waxaa la yidhi wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayka rutaban janiya maxaa yeelay timirta baa la yidhi qofku hadduu cuno wixii maalintaa daal soo gaadhay iyo tacab jidhkiisa soo gaadhay ee nafaqa jidhkiisa ka baxday hal mar keliyay ku soo celisaa waa min sunna nabawiya markaan sooma nahayna waa kii nebigu lahaa timirta ku afura haddaad oydaana biyaha cad ku afura buu nebigu yihi waa geed manfaco badan qarni iyo dheeraad baa la manaaficsadaa baa lagu leeyahay qarni iyo dheeraad ayaa midhihiisa la guran uun saa loo guran aqalka ay timir oolina bay odhan jireen salafku aqalkaa fakri baa yaalla aqalka ay timir oolin fakri beerta geedahaa leh ayuu saxaabigaas ilaahay dartii u bixiyey kan intaasi maxaa bedelay hal aayadoo qur-aana ayaa noloshiisa ninkaa bedeshay inankana maanta zamankeennan wacdigii meel walba waa ka maqlaynaa laakiin isbeddelkii waa yar yahay isbeddelkii uu jiraa ilaahay fadligii maanta oo majmaciina halkaa fadhiya dhallinyar baad u badan tihiin laakiin haddana intay noo timiday ee masaajidda ku xidhan ee khayrka jecel iyo intaan noo iman iyo maa badan intaan noo iman baa badan